qaabka kulle ay ugu timi ka sheekaymayo waa garanaysan waa anti kasabkeedu ah xaraan weyn waxaan door biday inaanan hantidaanu ammaanteedu aysan isii raacin waxay raacaya ay yihiin camalka waxaan door biday inaan ilaahay dartii u laabto alxamdulilah hantidaas aad aragteen Holiday City waxaa u malaya inuu ka kooban yahay 16 qol hoolkii shirarka 4 meheradood iyo mudulayaashii meel badan bay soo madhay oo ay cagaha soo dhigatay intii aan kole 5 sano way tahay intii hawsha aan ku jiray ma adka ma sahlanayn kole in dadku ila qaataan inaan hanta intaa laga tagay xataa waa la yiri quraan ku saar waa warantahay alxamdulillah halku iyagu waxay bidayeen ninkii shalay firfircoonaayo hawshan ku dhiranaa maanta inuu yiraahdo yo inta baan ka tagaya waxba ka siiya bal horta waxa ogaada bay ka aadanaya alxamdulillah way la qaateen hooyo tol walaal ehl saaxiib intuba waa soo gaabinaya waxaan ku soo gaabinaya dadka meesha hadda fadhiya aan kala magacaabi karin oo aan wada garanayo waxaan markhaati ka dhigayaa hantidaas inaan uga tagay ilaahay dartiis hantidaas dad baa iga shaqeeyay guddi baan u waxaynay ku wareejinteeda iyo qaabkeeda guddigaasu waa guddiga xukuumadda masjid Umar bin Khattab inta uu kooban yahay tiradiisa waxaa manaya waraaqaha ku qoranta maxamed caawi waraaqaas ninkiyaas ha guddigaas hantidaas waxaan ugu wakiilanay masjid ahaan baanu documentiga u qoray masjidka buu ku qoran yahay documentiga Umar bin Khattab qaabka loogu qoray waa guddigaas hantidaas inay maamulaan wixii fadwo ah oo shariicadu ay ogoshahay oo danaha khayrka lagu qabanayo ilaahay raali ka yahay inay ku maamulaan iyaga waxaan leeyahay مسؤولية قادين الله يدفع ذي بدك ماشي سوق عبدالي وأهل كاتول كا علماء له لما أنت ندبي أن الله دافع وحنا مركا إذا كو أركا يعني عندكم ميتية مخاطئة كانوا قطان أنا كورة شيء مسجد عمر بن الخطاب قديس وقدامي وياها عبد النور كان واصل الله جويه guriga wasafar loogi guriga waxaan filayaa ogaanshaha dawladda iyo codkii aan bixiyay ee qaabkii dawladda aan ku baxshayna waxaan filayaa inuu kan yahay oo isaga halkan waa nootayadii eelkii odayaashii guddigii idinku intaa ka koobnaydaan sifooyinka looga baahan yahay oo aniga uu igala wareegay dib baan ka sheegi doonaa oo ka akhrin doonaa waatan waraaqdeed maamulkii iyo dawladdii iyo markhaatigoodiina waa kuwaan wey guddigaas waxaa loo wakiishay oo ay la wareegeen hantidaas sidii loogu maamuli lahaa kitaabka manasalka iyo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam wax shuruuda waxaan ku xiraamaanayaa
kuwa isaga uu leeyahay oo dee hantiyihii lagu lahaayo sida neek maxaa nexom neek waa laga bedelay nawaako waxyaalaha internetda ma badnaba waxyaalahaas maahan iyagu dee inay meesha ku qoran maahan hantidaas shuruud waxaa u ah hantidaasu aniga inay iga wareegto oo ay ku wareegto la gado iyadoo meesha aniga aysan waqaf iga noqon iyadoo meesha ku taalla aniga aysan waqaf iga noqon sababtana waxaa keenay bilaadan baan ahay malakama sugayo waddankeena waa iska burbur waxaa imaan kadha berri ka maalin hantidaas waa lahayn inay dhacdo qoryaha soo gurto ehelkeeda dadku wixii aan markaas caqli badan ku jirin ama u muuqato hantida sidaa awgeed shuruud waxaan ka dhigay hantida in la gado oo la iibsho wixii laga baxshay markaas in wax lagu qabto ama dugsiya lagu dhiso wixii khayraad ah lagu qabto laakiin iyadu meesha iyada ku taalla inaysan aniga waqaf iga noqon saysan beri u soo laaban idinkuna markhaatiga waxaa ka aataan inaysan beri soo laaban karin dadkii ku soo laaban lahaa haddii kole waa dadka la dhalay la tahay way fadhiyaan qaybtood guddiga wax badan bay kala shaqeeyeen hadda hawsha aan ku wareejinaya allah barakeeyo hawshan allah u fududeeyo